الحمد لله وكفاه وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ما أنت نوحان ربائنا وضع أن وحكسي شيء هدي إلهي يراهدو and negotiation across cultures يعني كوذا حاجات كدقة ماذا كلا دوان دقن كيني يدقن كان maxaan ku kala duwannahay wadaxaajoodka muxuu tegi karaa sidaanse uga hadli karnaa kala duwanaanshaheena waxyaalaha isaga egnahay iyo sidaan isugu soo dhaweyn karnaa muhiimaddu waxay tahay oo ugu horeysa in qofku uu fahmo luqadda Englishka ama uu yaqaano haduusan aqoonin inuu barto ayaan encourage gareynayaa hadii Ilaahay yiraahdo because kala luqadda qofka oo aad fahamtaa wax badan ayay ku furfuraysaa dhaqankiisa oo fahamtaana waxa ku wanaagsanaanayo xiriirkeena laakiin anaga orodka aan xagga uga nimid iyo qixi aan wali ku jirnaa mana joogno mana bixin marka waxaan rabnaa inaan wax badan oo bal deganaansho wadankan uu leeyahay ummadaha dhamaantood way ku wada nool yihiin meel kasta ee caalamka ka yimaadeen way wada joogaan laakiin waxaa muhiim ah inaan cararka deyno fahamno xaqeena ogaano wadanka sidoo u dhaqmana aan barano dadka dhaqankooda hadaan fahamno wadankeena meel aan ahayn horta dhaqankeena uu ka jiro male oo u cararayno wadamada kale dhibaatooyin badan ayaa nagu haysto ilmihiina dhaqankii uu ku dhasheen kii uu u dhashayna ma haysto ku dhashayna ma joogo meel kastoo la geeyane xaaladdu way dhanaan tahay hadii la isu soo noqdana kan ma fahmaayo uu aad rabto inaad ku hayso kii aad ku haysayna waad ka soo wado awood badan uma haynaysid marka waxay tahay muhiimka inaan bayska iska dhisno oo aan fahamno dhaqankan iyo keeni maxaa u dhaxeeya dhaqankeeni iyo kan yani habka la isu soo dhawaanshaha oo kale qofka ilaa 4 tilaabo ina u jirsato waa muhiim oo yani sida la isu salaamayo kala waa ku kala duwannahay sida ciidan ay habka ay isu salaamaan ama ay isu fiiriyaan ama ay isu soo dhaweystaan dhaqamada kale oo wadankan waa multicultural UK is a multicultural country waxa waaye waa wadan cid walba ay joogto oo caalamka ku nool waa wadan dhaqan kasta iyo diin kasta iyo luqad kastaba laga helayo at the same time ay nabad ku wada nool yihiin annagana meeshan ka nimid waa naqaana iyo habkan ugu nooleen nidaamka naqareebana waxay tahay leadershipkeenu aad u liito dadkan leaderska ah wax badan haysanin laakiin ani non political ayaan ahay ma jecli inaan ka hadlo waxyaalaha oo political affairs-ka laakiin effectiga ay noo geysatay inaan marmar ku soo daro waa laga yaabaa cidna inaan ku weerarana ma doonayo laakiin waa muhiim inuu qofka wax hogaaminayo mas'uuliyadiisa garanayo language barriers-ku waa midka ugu horeeyo oo mamnuucay in qofku uu xaqiisa fahmo ama xaqa uu nidaamka wadanka uu joogo uu fahmo waana muhiim qofku inuu barto luqadda wadanka uu joogo wax badan ka fahmo waa aad ay muhiim u tahay inkastoo wadamada Yurub qaarkood ay baraan iyo Mareykanku haddana wadankan wali qofkii aan raadsanin laguma qasbo oo wax qasab ah ma jirto waxay tahay inaan ogaano dadkan dhaqankeena iyo dhaqankooda way kala duwan yihiin diinteena iyo toodana way kala duwan tahay laakiin si bareer ah ayaan ugu nimid full respect waa inaan kula noolaana sida ay noo ixtiraameen waa inaan u xaq dhowrnaa sida ila tahay si aan xaq waxyaalaha baahideena ay u daboolantana aan wax badan dhex galnaa bulshada marka hadii aanan dadaalina wax badan ma imaanayo oo muxuu yiri gabaya waxa jira anaada gabayadan kuma fiicna laakiin mid on 7 marka aan soo xasuustay adduunyadu waa halkaasoo hirbuu daba socdaay hankaagu fogee miyaa hawshaadu ku toos miyaa iftiin iyo hibo ku ladhaniyo indhoolaha haga miyaa wuxuu yiri waxa cirka lagu hujuumay waxa dhulka lagu hubsaday waxa badaha hugmaya bidaanshay guntooda hoose waxa uu miyaha hanuunshay waxa cudurkii halgaaday
waxaa jahligii haleelay, waxaa gaajadii hirdaayay, horseed cilmiyeed miyaa? muxuu yiri ninkii Soomaaliga, ninka buurta roob ku helaye gunteeda ka heesayo waa Soomaaliga. fikteeda nolol haboon. Marka communication is a base of everything. xiriirkaaga wanaagsanaado wax kasta ayuu ku hagaajinayaa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri yaa ayyuhalladhina aamanu ittaqullah, ilaahay ka baqa waqulu qawlan sadida, hadal wanaagsan dhaha. hadalka wanaagsan muxuu sameeyaa? yuslix lakum a'maalakum, yani hawshiina idin toosaysa. communication-kaaga fiican hawshaadana waa toosee, ويغفر لكم ذنوبكم دنبيدينا waa lagu dhaafayaa. marka waa xaalad diini ah in good communication skills aan haysano. tabasama akhiika sadaqu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam. qofka walaalka ah anaka oo gabar ayaan leeyahay tir gabar Soomaaliya intaan salaamay itirnaa ma garanaysa. ma aha inaad garanaysiin, waa isgaranaynaa horta inaan cid isku nahay Soomaaliyeed waa fahmaynaa, laakiin ina cidaata aan aqaano ama qoftaata aan aqaano muhiim ma aha. afshi salaama baynakum ay soo istaagaysaa meesha. salaanta waa in iyo wanaaga. mida kale isu hiilinta. haddii qof dhibaato ku dhacdo waa ina qofka kaleeto uu u gurmado, dariskiisa ah qofka ogaaday inuu u gurmado, qof kasta uu u gurmado, because dadka waxaan ka baranay inay dad wanaaga u gurmado yihiin, shartana ka gurmado yihiin. yani dhinacyo kale kama hadlaayo, laakiin markii qof wax laga hadleeyo kale dadka community-gooda ah way soo caawiyaan. hadda waxaan ani witness u ahaa nin oo Polish ah oo ilmo Norway lagu qaatay, oo cid Polish laga qaatay, ayuu campaign u sameynayay, lacag ayuu ka dirayay meel. markaan aan weydiiyay intaas oo lacagana wuxuu yiri campaign ayaan ku support gareynaynaa. maxay tahay? 3 caruur oo 2 caruur ayaa laga qaatay yiri cid Polish ah oo ka qaadatay dawladda Norway, qalad ayay uga qaadatay, ayaga u campaign gareynaynaa. intaas oo donation waxa ugu deeqaynaa ayuu dhahay dadkeena si ilmihii loo soo celiyo. markaas waxaan ku iri dadkaas dad idinka isku diinaatiin, hadday idinka ilmaha idin koriyaan, anaga oppression kama yeelno yiri, dulmiga cidna kama qaadano. marka ummadda Soomaaliyeed meelaan ka nasakhanahay, meeshaas aan ka nasakhanahayna waxay tahay isu imaasho la'aanta, is aaminid la'aanta, iyo is ixtiraam la'aanta annaga dhexdeena nagu haysato. xagga waa laga soo tagay, qabiilka xagga oo naga soo raacday, intan wuu naga raacdaynayaa xaqiiqatal kalaam. marka inaan isfahamno oo ummadii aan wax la qaybsano. dad dawladdu way naga yaaban tahay, dadka oo wadanka jooga way naga yaaban yihiin. why we are not united? maxaadna haysta oo aan u heshiin la'nahay? wadanka waa ka soo tagnay, laakiin kan aan joogno micno kuma yeelanayna ilaa iyo hal dad aan noqono. because aniga intaan ka imid ani xaggan ka imid, adiga hadda xag ka timid ana inta ka imid, maxaa bini aadana nahay isku meel ka yimid oo hal magac haysta aan isu fahmi la'nahay. we need to understand macnaha ay leedahay isu imaashuhu. reer qurac iyo reer qansax iyo reer qaalin ciddaa doonta ahaa, laakiin biyo meel godana isugu yimaadiin. hooyo kastoo balanbalaysa oo cunugeeda shalay toola dhibaatada gaarta ku kor ooyeyso, midda iskuulka inta ilmaheeda lagu soo abuse gareeyay aan cidna garabka weyse iyo gargaarka. hooyooyinka kulli depressedka ah oo dhibaatada intay ku dhacday wax caawiyala oo meelaha ka ooynaya, iyagana 10 ayaan u soo wadaa. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa xalaqadeena dambe insha Allah. assalaamu calaykum.